السلام عليكم soo dhawo libaaxii libaaxad maanta waxaan doonayaa inaan kuu sharxo filim lagu magacaabo Look Up ka horse intaan u gudagalin muuqaalka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aashii taxanaha inoo ahayd sida muuqaalka hore ku soo daawataba waxaan kuu sheegay in su'aashan ay noqon doonto taxane haddaba James markii uu soo xaliyay arrinta gabadhii laga dilay ninkeeda oo uu soo laabtay xafiiskiisa waxa uu ka war helay gabadhan oo iyaduna meeshii ku sugaysa isagoon la hadlin waxa ay u sheegaysaa inay marka hore ka timid Brazil iyadoo u sii raacisay in halka ay u tagtay kaliya inay soo barato luqadda dalka iyadoo u sheegtay inay ka cabanayso in macluumadeedii aysan u ogolaan inay ku hadasho luqadeedii ay taqaanay Ingiriiska laakiin dambi baaruhuba gabadhii intaysan hadalka dhameen waxa uu dareemayaa inay been sheegayso isagoo markiiba amray in iyada laftirkeeda la xiro haddaba daawaday kaadi ahaan ma sheegi kartaa waxa uu dambi baaraha ku fahmay in gabadhu ay sheegayso been si fiican u eeg sawirka kuu muuqdo iskuna day mar kale inaad sheegto sababta dhaqsiyaha leh ee uu dambi baaraha ku ogaaday in gabadhu ay sheegayso been runtii filimkan waxa uu maanta taawanayaa qeybo badan oo ka mid ah habdhaqanka bulshadeena iyo barbaarintoodaba isku day inaad si fiican u daawato kagana bixiso faalo wixii aad kala baxday filimka aniguse iska bilaawe iga qaybta commentiga dhacdada filimku waxa ay ku bilaabanaysaa aabahan oo lagu magacaabo Luz kaasi oo kaliya la nool wiilkiisa oo isaguna lagu magacaabo Frank waxay wada joogaan dalka Spain Frank aad uma jecla aabihii maadaama uu arko mid takoor ku ah isaga kuna taagan halka isaguna uu yahay wiil lazy ah yacni waxa uu mar walba karo fadhiyaa kombiyuutarka si saaxiibadii kaliya uu la ciyaaro games isagoo xitaa ciyaaro mararka qaar qamaar kuna lumiya lacag aad u tiro badan sida iska cadna hooyadii ma arko oo waxay guriga isaga tagtay isagoo jira farsano mar walba uu aabihii ku qayliyo waxa uu ku yiraahdaa qayladan darteed bay hooyadii isaga ka tagtay Frank aabihii isaguna si nabada habeenkii kuma seexdo sabab la xiriira dhaqanka wiilkiisa oo aanan habeenkiiba indhaha saarin Luz waxa la soo darsay murug badan mar walba waxa uu isku dayaa inuu waaniyo wiilkiisa lana hadlo una sheega xitaa inuu markaan weynaaday da ahaan intaa kadib maalinkan odaygii Luz waxa uu qariibsanayaa xaaladda wiilkiisa iyo dhaqankan aadka u liita isagoo maalinta aad u canaananaya una sheegaya in mustaqbalkiisu uu ku jiro god mugdi ah haddii uu sidan ku sii socdo intaa kadibna uu isaga tagayaa dhanka kale daqiiqado kadib waxaan aragnaa ninkii la waaninayay laguna qeelinaya oo iska baashaalaya lana jooga qaar ka mid ah asxaabtiisa laakiin mar qore isaguna waxa uu imaanaysa gabadhan oo ka mid ah saaxiibadii taaw lagu magacaabo Noria waxay u sheegaysaa in xaggiisa ay u badan tahay maalmahan yacni ay doonayso laakiin Frank waxa uu tilmaamayaa in agtiisa ay u taalo saaxiibtinimo afaarahana uu xoogaa ka yaryahay intaa kadibna Frank aabihii mar qore waxaa soo wacaya maamulihii iskoolka isagoo ku amrayay in si degdeg ah u yimaado xafiiska Luz markii uu soo galo maamulihii waxa uu u sheegayaa dhaqanka wiilkiisa aadka u liita isagoo odaygii Luzna dhegta ugu dhibcinayay in wiilkiisa uusan iskuulka badanaa imaanin haddii uu yimaadana uusan casharada si fiican ula socon taa beddelkeedana uu macallimiinta nafta u keenay ayna xafiiska ka taalo dhowr dacwadood oo macallimiin ah intaa kadib isagoon maamulihii hadalka u dhameen haddana waxaa laga soo wacayaa isbitaalka isagoo loo sheegayay in wiilkiisa uu dhibaato u geystay yacni uu garaacay mid ka mid ah saaxiibadii iskoolka isla dhigtaan kaasi oo isaguna lagu magacaabo Mohel in yar kadib Luz markii uu soo gaaray isbitaalka waxaa la hadlaya Mohel aabihiisa isagoo ku canaananaya dabeecadda liidato ee wiilkiisa laakiin Luz markan waxa uu ka codsanayaa inuu saamaxo cunugiisana uu mar dambe u soo dhawaan doonin intaa kadibna isagoo aad u caraysan waxa uu soo aadayaa wiilkiisii Frank si uu u canaanto ula hadlo una sheego waxa uu sameynaya qaladkooda in yar kadib markii ay kulmaan isagoo raba inuu la hadlo waxa uu ka war helayaa dharbaaxo yacni Frank waxa uu sabaxad ku dhufanayaa aabihiisa kadibna uu isaga tegayaa isagoo aad ugu qeylinaya xor ayaan u hay waxa aan sameynayo Luz hadalka markii uu maqlo waxaa ka soo haray kaliya aamusnaan muddo kadib markii la gaaray maalinkii dhalashadiisa yacni Frank dhalashadiisa waxa uu aabihii ka xadayaa lacag uu ku sii iibsado biir si isaga iyo saaxiibadii ay madaxa u furtaan intaa kadibna markii ay wadacbaan oo ay bilaawaan inay wada ciyaaraan Frank mar qura waxa uu arkayaa saaxiibtiisii hore ee Noria oo la ciyaaraysa xariif kale kaasoo isna saaxiib la ah Frank oo aad arrinta ugu xumaaday waxa uu isku dayayaa in saaxiibkii uu wax qalada ku sameeyo laakiin isagoon dhaqaaqin uu socelinayaa halka aabihiisa Luzna uu iska fadhiyo goob ka mid ah guriga isagoo iska cunaya keegii uu u diyaariyey wiilkiisa wuxuuna bilaabayaa inuu aad uga fikiro dhaqanka wiilkiisa iyo sida ugu macquulsan ee uu ku edbin lahaa ilaa markii dambe uu raadiyo xarun dhaqan celis ah taasi oo la geeya carruurtii iyo kuwa kale ee la kari waayey si ay halkaa ugu xariisnaadaan intaa kadibna waxa uu helayaa xarun ay in badan ammaaneen waalidiintii hore u geystay carruurtooda iyaga oo Luz usii sheegayay in ilmahooda ay si dhaqso ah u tooseen ayna mujid ahaanba isbedeshay dhaqankoodii iyo dabeecadahoodii liitay ayna noqdeen kuwa aad nadiif u ah dhanka kale Frank isaguna markan waxaa la soo xiriiriyay saaxiibkiisii yacni midkii uu ku arkay qoftiisii Noria waxa uu doonayay inuu la hadlo laakiin Frank oo aad ugu cariisnaa waxa uu la dhaqmiyaa si aanan wanaagsaneyn isagoo markiina ku jiraya koolka wuxuuna markiiba wacayaa Noria si ay ugu sheegto waxa isaga iyo saaxiibkii ka dhaxeeyo Noria oo aan gamban waxa ay u sheegaysaa in marka hore isaga ay doonaysay balse uu diiday ayna raasatay shakhsi kale isagoo aad u niyad jabsan aadna uga carooday hadalka waxa uu iska jarayaa koolka intaa kadibna odaygii Luz markan waxa uu helayaa xogo iyo macluumaad aad u tiro badan oo dhankii xarunta ah isla markiiba isagoon meel kale eegin waxa uu ka diiwaangelinayaa wiilkiisii Frank ilaa laba ka mid ah shaqaalihii xarunta ay mar qura guriga yimaadaan si ay Frank u dafaan isagoo aanan warka haynin markii ay soo qabtaan isagoo aad u cabsanaya waxa uu la hadlayaa aabihiisa laakiin Luz waxa uu sheegayaa inuusan cabsanin intaa kadibna waxa loo soo kaxaynaya
keenayaa goobtii. In cabaara kadib markii la keeno xarunta waxa uu imaanaya maamulihii goobta oo lagu magacaabo Oscar. Waxa uu bilaabayaa inuu la hadlo Frank oo isku dayaya inuu yeeso. Maamulihii mar qura waxa uu derbiga ugu garaacayaa madaxiisa isagoo dhegta uga dhibcinaya in halkan uusan ahayn gurigii uu ka soo tagay, yacni gurigii aabihiisa, ayna tahay inuu u hoggaansamo jadwalka iyo nidaamka waafaqsan halkan, haddii kalena loola dhaqmi doono si aad u adag. Intaa kadibna waxaa loo sii dhaadhicinayaa gudaha xarunta isagoo marka ugu horeysana laga jaraya tinta loona gelinaya dharkii goobta si uu xarunta toos uga mid noqdo. Markiiba waxaa soo dhaweynaya gaangistaradii iyaguna kaga horeeyey meesha. Intaa kadibna Frank markan waxa uu fadhiisanayaa qaybta dambe ee qolka. Mar qula fasalkii waxaa soo galaya shakhsi raggii joogay goobtii hal mar way wada istaagayaan marka laga reebo Frank, laakiin si uu u barto sharciga isaguna waxa uu ka daba istaagayaa raggii kale. Intaa kadibna waxa uu si taxaddar leh u baranayaa dhaqamadii ka jiray goobta isagoo aan wax ficil qaldan ah sameynin, sidoo kalena sameynaya wax walba oo lagu amro, tababar, training iyo howl qabashaba. In yar kadib markii ay soo dhamaystaan hawshooda waxaa la keenayaa goob ay si wada jira uga cunteeyaan. Waxaa haddana loo sii dhaadhicinayaa oo la marsiinayaa baaritaan caafimaad si loola socdo xaaladooda. Isla xilligaana odaygii Luis isaguna maalmahan waxa uu qaadanayaa maalmihii ugu wacnaa ee uu aad u hurdo, sidoo kalena uu ka qayb galo balamadii uu lahaa weliba waqtigoodii, maadaama goor walba uu qasi jiray xaaladda wiilkiisa. Intaa kadibna suuxan waxa uu bilaabayaa in wiilkiisa uu soo dhiibo hadiyad. Bokiskii hadiyadda markuu uu soo gaaro iridda hore ee xarunta, maamulihii waxa uu bilaabayaa inuu furo oo uu marka hore baaro. Isla markii uu arko maamulihii Oscar hadiyaddii ku jirtay gudaha, waxa uu Frank ku amriyaa inuu iska laabto hadiyaddanna uu soo doonto marka uu goobtan ka tagayo. Intaa kadibna Frank iyo kooxdiisa markan waxaa loo keenayaa dhakhtar cilmu nafsi ah si xaaladoodii iyo mushkiladda haysato uu u dhageysto. Sida muuqatana mid walba waxa uu ka sheekeynayaa waxa ku jiray laabtiisa, halka Frank uu dhakhtarkii u sheegay in aabihii uu la dhaqmayo si uusan jeclayn, sidoo kalena uusan badhageysanaynin hadalkiisa, isagoo dhakhtarkiina u sii sheegaya in dhaqankaasi aad ku adag xitaa ay aabihiisa uga tagtay hooyadii. Raggii meesha joogay iyo dhakhtarkiiba waxay aad uga murugoonayaan Frank qisadiisa. Intaa kadibna markan maamulihii goobta waxa uu isugu wacayaa isagoo u sheegaya in maanta xaruntu ay tahay maalin xuriyad ah, yacni ardayda la siin doono xuriyad inta maanta keliya ah. Intaa kadibna markii ay kala tagaan waxaan aragnaa mid ka mid ah howlwadeenadii meesha uu dhex jooga koox raggii ka mid ah oo iyaguna hal meel ku cunteynayay. Waxa uu mar qura arkayaa shakhsi aan si wacnayn wax u cunaya isagoo aanan meel kale eegin, waxa uu ku dul garaacayaa cuntadii. Raggii kale markii ay arkaan sidoo loo gelaya saaxiibkooda waxay bilaabayaan inay si wacan u cunteeyaan, halka kii la garaacayna markan uu soo gaaraya dhaawac daran ilaa loo qaado oo uu u baahdo isbitaal. Maamulihii goobta Oscar markan waxa uu dareemayaa murug ah in hadhow ay iyagu u imaan karto maxkamadeen haddii mar kale ay sameeyaan ficilo noocan oo kale ah, isagoo mar kale howlwadeenadii uga digayay inay ku dhaqaaqaan fal noocan oo kale ah, kaasi oo xitaa keeni kara ilaa heer loo baahdo dhakhtar. Intaa kadib habeenkii markii la gaaray mar qura waxaa aad u qeylinaya mid ka mid ah raggii oo la siiyey daawo halwasaad ah. Frank markiiba waxa uu ka toosayaa hurdada wuxuuna soo aadayaa dhankii codka, mise mar qura wuxuuba arkayaa shakhsi xirxiran oo indhahana laga daboolay isagoo isku dayaya inuu caawiyo. Shakhsigu waxa uu u qeylinayaa si aad ah. Frank oo aad u cabsaday markiiba uu soo cararaya, laakiin waardiyaashii oo dareemay in ninka uu u yimaaday shakhsi kale waxay soo aadayaan dhinaciisa, halka Frank sidoo kalena uu isku qarinaya goob mugdi ah. Balse nasiib xumo waxaa qabanaya mid ka mid ah waardiyaashii, balse Frank waxa uu ku dhiiranayaa in waardiyaha uu iska celiyo ilaa markii dambe ay u wada yimaadaan waardiyaashii kale oo ay wada qabtaan. Intaa kadibna waxaa la keenayaa qolkii ciqaabta isagoo la marsiinaya ciqaab ah in xabadka dhulka loo dhigo, gacmahana uu fidiyo qofka, sidoo kalena uu isku celiyo keliya garkiisa, sidaana uu ahaan doono muddo 2 saac ah. Frank markii uu arko ciqaabta markiiba waxa uu dareemayaa inay aad u xanuun badan tahay, laakiin 2 saac kadib markii uu dhammaysto waxaa lagu celinayaa goobtiisii. Intaa kadibna maalinkii xigay Frank waxa uu iskaga noolaanayaa sidiisii hore isagoo marba dhinac ka baranaya cawaaqibtii ka jirtay goobta. Dhanka kale Luis markan waxa uu ka qayb galayaa shir ay ku wada kulmayeen qaar ka mid ah waalidiintii meesha keensaday carruurtooda si ay ugu warbixiyaan xaaladahooda. Mid ka mid ah howlwadeenadii xarunta oo kasoo qayb galay waxa uu dadkii tusayaa gabadh aad ugu fiicnaatay xarunta iyadoo oo keliya joogtay muddo 20 cisho ah. Waalid kasta oo gabadhii weydiiyey su'aalna waxa ay ugu jawaabaysay haa, yacni waxa ay u luxaysay madaxa. In cabaara kadib markii uu soo dhamaaday shirkii, Luis waxa uu isaga soo laabanayaa gurigiisa wuxuuna markiiba iska shidanayaa kombiyuutarka, balse mar quraba waxaa kasoo horbaxaya muuqaaladii hore ee uu wiilkiisa duubay jiray. Isla markiiba waxa uu go'aansanayaa inuu soo aado meeshii xarunta. Markii uu soo galo gudaha xarunta waxa uu markiiba loo daarayaa muuqaal wiilkiisa oo la dagaalamaya waardiyaashii si uusan isaga war kale u galin. Luis oo aad mooday in afka laga xiray waxa uu isaga soo laabanayaa gurigiisa. Oscar oo dhex socda xaruntii mar qura waxa uu arkayaa raggii oo iska baashaalaya aadna u qoslaya, wuxuuba keenayaa ciqaab cusub oo ah in marka hore uu ku soo xareeyo goob silig ah, markii ay soo galaan gudahana uu indhaha ka xiro, halka goobta oo idilna ay wada bannaan tahay, qabowguna uu aad u daran yahay, isagoo amar ku siinayeen qofna aanan istaagi karin inta ay meesha ku jiraan, halkii kii fadhiistana la geyn doono qolka ciqaabta, isagoo dhegta ugu dhibcinaya in goobtan ay ku jiri doonaan maalmo iyagoo xitaa aanan bannaanka ugu soo bixi doonin xaajo, yacni waxa ay xaajadu ku gudan doonaan isla meeshooda. Sida iska cadna xaaladdu way sii xumaan doontaa marba marka kasii dambeysa, maadaama urka goobta uu aad isku sii bedelayo, halka keliya cuntadana lasoo dhex dhigi doono, ninkii laga boobana faca ka har maqli jir laha aruursho. Intaa kadibna dhakhtarkii cilmi nafsiga
isagoo daawanaya ciqaabtaasi oo idil waxay duubaysaa muuqaal qarsoodi ah ilaa uu ka shakiyay mid ka mid ah howlwadeenadii xarunta. Oscar oo markiiba xafiiska ugu yeeraya waxa uu weydiinayaa muuqaalka iyadoo aan gambanna waxayba u sheegaysaa in mar hore ay ku faafisay social media. Oscar oo ku jeesjeesaya hadalkeeda waxa uu sheegayaa in waalidiintu ay raalli ka yihiin ciqaabta ayna carruurtooduba ay sidaa u keensadeen, isagoo dhegta uga dhibcinaya in xaruntan aysan iyadu ka shaqayn doonin saaca wixii ka dambeeya. Dhanka kale raggii lagu xiray silsilada ee lagu amray inaysan fadhiisan karin maalmo awood darteeda dhammaantood waxa ay ku dhacayaan dhulka marka laga reebo Frank oo isna xitaa tacbaan taagan. Dhanka kale aabihiisii Luz waxa uu la kulmayaa Frank hooyadiisa isagoo si wacan ula dhaqmaya, sidoo kale xitaa u gadaya hadiyooyin qaali ah maadaama kaliya uu ka cabsanayay inay la korto oo la fuusho maxkamad. Wuxuuna markaan keenayaa maqaayad si kaliya uu hilmaamsiyo arrinta wiilkeeda. Dhanka kale gabadhan oo lagu magacaabo Sandra waxay aabaheed ka codsanaysaa inuu u furo kombiyuutarkiisa. Intaa kadib markii ay istiraahdo gal gudihiisa waxba ka soo horbaxaya muuqaalkii ay duubtay dhakhtaradii oo ay ku faafisay qadka iyadoon meel kale u dhaqaaqinba waxa ay ku dhacaysaa dhulka maadaama ay u adkeysan weysay xaaladda muuqaalka ku dhex jirta. Dhanka kale waxaa xarunta imaanaya maamulaha guud isagoo Oscar markiiba weydiinaya muuqaalkan dhex wareegaya qadka, wuxuuna dhegta ugu dhibcinaya in wixii ka yimaada eedeeda uu isaga qaadan doono. wuxuu waqtiga isdawareegana waxaan aragnaa Frank oo weli ku jira goobta balse aad moodo in xoogaha uu isbedelay, halka maamulihii Oscar isaguna marka uu keenaya ciqaab kale oo ka adag tii hore kana kulul. kii ficil qaldan sameeyana uu mutaysan doono mid ka sii adag xitaa hadduu noqdo qaladka mid yar, ilaa heer ay raggii Frank gaareen in ay toosaan oo aysan xitaa kalaam soo celinin. intaa kadibna maalin waxaa xanuunsanaya Frank waxaa la keenayaa qolkii saalada iyagoon daawo kale u eeginna waxa ay siinayaan keliya daawo qofka ka dhigaysa halwasaad ilaa uu ka jiifto muddo aad u dheer, isagoo markii dambe xaaladiisuna ay noqotay mid aad u degan. intaa kadibna markaan waxaa la fasaxayaa dhammaan wixii ay qaban jireen iyagoo loo qabanaya weliba xalfad laba dhinac ah, yacni wiilashii iyo gabdhihii ku jiray xarunta ee kala goobta ahaa. intii ay socotay xafladda mar qura mid ka mid ah raggii ay saaxiibada ahaayeen Frank waxa uu isku dayayaa inuu ka baxo goobta. Oscar oo meel kore ka arkay waxa uu bilaabayaa inuu garaaco ilaa intii kale ay wada cabsadaan oo ay toos wada joogaan goobtooda, halka Luz aabihiina uu goojo ka ahaa xarunta balse wuxuu isku soo ekeysiyey shakhsi kale. waxaa galaysa cabsi dhanka wiilkiisa isagoo markaana amrayay in loo soo daayo wiilkiisa. in yar kadib markii loo sii daayo Luz waxa uu arkayaa in wiilkiisu xaaladiisa aysan caadi ahayn. intii ay wada saarnaayeen gaariga oo ay wadada u socdeen xitaa uusan hal kelmad oran. markii ay yimaadeen guriga waxa uu imaanaysa saaxiibtiisii Noria si ay u dejiso, laakiin Frank weli ma hadlayo mana doonayo in qof uu la kulmo. in muddaha kadibna markaan waxaa aragnaa isaga oo bannaanka keenaya alaabtii guriga ugu jirtay. Luz waxa uu dareemayaa in wiilkiisu ay wax ka qaldan yihiin, si uu u dejiyana waxa uu u soo gadayaa taleefan qaali ah. markii uu u keenay isagoon eegin lana hadlin waxa uu uga soo baxayaa qolka. Luz oo aanan ka harin mar kale waxa uu isku dayayaa in wiilkiisu uu la hadlo, laakiin mar qura Frank waxa uu aad ugu qeelinayaa aabihiis isagoo u sheegaya in dartiisu u noqday badow, sidoo kalena uu geeyay goob uusan waalid wiilkiisa uusan geyn lahayn. laakiin Luz oo aad isku jilcinaya waxa uu sheegayaa inuu qaldamay una saamaxo, sidoo kalena waxa uu sheegayaa hooyada markii ay kaa tagtay adigoo aad u yar maadan helin xanaano kugu filan, anna ma aqoonin sida carruurta loo tarbiyeeyo, isagoo u sheegaya in agtiisu uu yahay qofka aadka loogu jecel yahay. Frank oo dhaqan ahaan aad isku bedelay waxa uu ka ogolaanayaa aabihiisa cudurdaarka isagoo u sheegaya inuu la dhaqmi doono si wanaagsan. intaa kadibna waxa ay noqonayaan wiil iyo waalidkiisa kala dambeeya waxayna isgelinayaan laabta. ugu dambeynna filimku waxa uu soo dhammaanaya iyagoo aad u faraxsan kuna damaashaadaya mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan adduunka. haddaba gabagabada iyo gunaanudka mawduucani maanta, haddaba fikir ahaantaada maxaa ka faa'iiday muuqaalkan oo aad kala soo dhex bixi kartaa inagu reeb qaybta kommentiga. waxaan rajeynayaa in muuqaalka sidoo kale aad la wadaagi doonto saaxiibada si iyaguna ay u daawadaan. xasanid.